السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت دمت الآن حرست انت حنوتي إلى عافية وحمراد لمراد خير إلى سيو ما انت عرض حكو بيانتا لبدي بشي كوات محرم كون أفر بغل أفر تزديد كو بيغن ستيد تبنكي بشي لحاد لو كنات الله وحال الله هشي وحيشي مرايكن كي إيران وحين كو هشيين قضبان سو سعوده كدي هشيسك waxay muujinayaan xogta maraakiibta ee ku saabsan marinka biyoodka Hormuz iyo wadooyinka cusub ee maraakiibta. Markii ku dhawaad 4 bilood ay maraakiibta ganacsiga kuwa shidaalka iyo kuwa shidaalka gaaska qaarkood ku sugnaayeen biyaha khaliijka ee gacanka Cumaan waxay bilaabeen inay mar kale ka gudbaan marinka Hormuz, taas oo muujinaysa dhaqdhaqaaq cusub oo ka bilaabanaya mid ka mid ah marinada badda ee ugu muhiimsan dunida kadib markii uu hirgelay heshiiskii Mareykanka iyo Iiraan. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda maraakiibta ee marinka weli si buuxda uguma soo noqon sidii hore. Tirada maraakiibta gudbaysa weli way ka yar tahay heerarkii ka horreeyay dagaalka. Waxay leeyihiin dagaalka ka horreeyay sidii hadda maraakiibta gudbaysa weli way yar yihiin, halka kuwa doonayaan cusub Iiraan ay ku soo rogtay weli la isticmaalayo isla markaana nidaam yarida navigationka ee agagaarka Hormuz iyo aaga iyo markabka. Isla markaana kadib heshiiskii tirada waxay ku jirtaa tirada hadda gudubtay maraakiibta waxaa ka mid ah 7 markab oo shidaal qaada, markab gaas dabiici qaada, 5 markab oo xamuul qaado, 1 markab oo gaadiid ah iyo 1 markab oo rakaab ah. Tani waa tiradii ugu badneed ee maalin gudahood gudubto la diiwaangeliyay markii la heshiiska la gaaray. Maraakiibta shidaalka iyo markii uu bilaabmay xanibaadii badeed ee Mareykanka 66 maalmood ka hor. Markuu Mareykanka xanibay Iiraan 66 maalmood ka hor ayaa waxaan dhacday maraakiibtii ugu horreysay oo gudubtay. Maraakiibtii gudubtay maanta ugu horreysay waxaa ka mid ah 15 markab, 6 markab oo ugu horreeyay gudbay tan iyo markii uu dagaalka bilaabmay 28 February kadib markii ay ku xayirmayeen biyaha khaliijka in ka badan 111 maalmood. kuwaas oo waxaa ka mid ahaa maraakiib gaas LNG, 2 markab oo shidaal Tongling 1 iyo Hinch laho, markab rakaab oo la yiraahdo Hormuz, markab xamuul culus oo Josco Shoes laho, markab gaadiid Grande Torino laho, maraakiibta xayrneed Shiinaha. Inkastoo aanay jirin xanibaad rasmi ah oo lagu beegsanayo maraakiibta Shiinaha, xogta maraakiibta ayaa muujinaysa in qaar ka mid ah maraakiibta Shiinaha ay ka gudbeen ama ka laabteen inay ka gudbaan Hormuz intii uu socday dagaalka kadib markii ay gaareen agagaarka marinka. Grande Torino oo gudbay. Grande Torino waxa iskale oo markab laga leeyahay shirkad ay leedahay Talyaani. Markabka gaadiidka Talyaaniga ee Grande Torino ayaa ka gudbay marinka Hormuz kadib markii uu muddo ku xayirnaa meel sugitaanka ah ku sugayay oo ka baxsan xeebaha Imaaraadka Carabta. Markabkan wuxuu hadda u socdaa dekedda Singapore waxaana maamulo shirkad Talyaani ah. wasaaradda arrimaha dibadda Talyaaniga ayaa sheegtay in markabkani uu ka mid yahay kuwii ugu horreeyay oo
maraya marinka Hormuz kadib saxiixii heshiiska cusub ee Mareykanka iyo Iran u dhexeeyay. Grande Torino waa kiis u gaar ah maadaama uu ka mid yahay maraakiibta Iran Shiinaha inta badan laba Iran iyo Shiinaha maraakiibta oo la beegsanayo ma ku jirin laguna xanibay, balse uu yahay markab Yurub laga leeyahay oona tijaabiyay heshiiska cusub ay gaareen Iran iyo Mareykanka. marka waxaa qodobka in la soo wadaago maraakiib badan gudubtay 15 markab laga leeyahay Talyaaniga oo shirkad Talyaani maamusho oona Singapore u sii socdo iyo maraakiib kale oo Shiinaha laga leeyahay iyo kuwa kale. marka waxaa marka qodobkaas inay la soo wadaago waan la heshiiyay insha Allah jimcaana si xashiix ugu dambeeyo lagu dhufanaya kadibna waxa laga hadli doonaa nuclearka uraniumka labadaas ugu muhiimsan hadda la filayo. marka channelka taageera subscribe saara waan salaamaya. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.